سؤاشي أي ويديسي سهرة فريد مدحوينه حقيقة مدحوينه كجواب marka laga hadlo sidoo uga jawaabay waa si diblomaasiyaysan bahayd waxaan isleeyahay daba fara badan oo ku shidnaa buu iskaga daminay si marka loo eegana innaga si gaar ah buu noola hadlo waxaan idin sheegayaa waxaa ceeb inagu ah innagoo leh deegaan aad u ballaaran innagoo ah dad aad u ballaaran in muxuu ahaayey jawaabaha noocaas oo kale ina la siiyo macnihii waxay ka dheehan tahay ama aan ka fahmi karnaa halkaas waxaa weeye war meesha ka kaca jawaabta madaxweynuhu war meesha ka kaca weeye dad la dhaho meesha ka kacana ma nihin eedeemayno dadka dariska nala ah eedeemayno dadka naga agdhow ee waxaan eedeynaynaa nafaheena shaydaan baa waxaa la yidhi maalinta qiyaamaha marka la tago dadka wuxuu ku leeyahay waryaadha falaa taluumuunii waluumuu anfusakum shaydaan oo la og yahay inuu halleeyey dadka haddana marka ay qiyaamaha la tago kursi weyn intii naarta u dhigto wuxuu ku leeyahay war falaa taluumuunii waluumuu anfusakum war nafihiina eedayaani eedeynina innaga haddii maanta aan raacno luflufka yar ee la soo tuurayo haddii aan ka fakerno nafaheenna iyo shahwaadka nafaheenna oo danaheenna iyo masiirigeenna iyo dhalinyarteenna iyo caruurteenna aan ka fakeri weyno maanta xaqiiqatan waxaana laga doonayaa meel fog baana laga doonaya waxaan la hadlayaa dhalinyarta oo si gaar aan ula hadlaya dhalinyartu waxaa weeye ubuucda ama lafdhabarta bulsho dhalinyar baa wax bedesha haddaad ogsoon tihiin dhammaan isbedelada caalamka ka dhaca dhammaan kasoo bilow xaawiye aadan ilaa waqtigan la joogo isbedel ma dhaco ilaa iyo dhalinyar baa barashar garaysa haddii aad eegto nebi maxamed sal allahu alayh wasalam dadkii taageerada siiyey abubakar sidiiq baa u weynaayo 38 sano u jiri kuwa kalena waaba kasii yaryaraay haddii la eego muxuu ahay soomaaliya iyo dadkii xorriyadda u keenay iyo SYL iyo dadkii la halmaalina dhalinyar bay ahayd dhammaan kacdoonnada caalamka ka dhaca dhalinyar baa saameyn ku leh waayo sabab tahay odayaashu tuumbaa meel ugu jirta nin odayo tuubo meel ugu jirtana xaqiiqatan muxuu ahaye way adagtahay siduu tuubadaas uga soo dhaco waayo ay sabab tahay tusaale waxaa idinku filan abujahal wuxuu ahaa nin gaal ah nebigu wuu ogaa muxuu ahaaye waxaa loo yaqaano inuu nebi yahay wuu ogaa wuuna yaqaan hase yeeshee nebiga sal allahu alayh wasalam waxa uu ku diiday waxay ahayd kursi seebay reer noocaas oo kalea kursiga ugu fadhiisan karaan daraaddeed buu naar ku mutaystay abujahal waxaan u baahannahay isbeddel baan u baahannahay dadka isbeddelka abuuri karana waa dhalinyarta isbeddel diyaar ma u nahay haddaan dhalinyar nahay aan kusoo gabagabeeyo saare fariid iyo bogaadinteeda aad baan u bogaadinaynaa tusaalay u tahay dhammaan deegaanada SSC dadka ka soo jeeda waa tusaale nool oo dhan kasta ah hadday noqoto dhanka deegaanka iyo waxyaabahay ka qabatay hooyada iyo dhallaanka iyo muxuu hosbitaalaadka insha allahu tacaala in aan bogaadino oo shahaado sharaf iyo wax ka weynba muxuu ahay aan siino way naga mudan tahay shahaadada sharaftan aan ugu talagalnay aan siin doona guddoonsiin doona mar dhowna waxay u guddoomi doontaa dhammaan hablaha gobolka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله الدكتور هو شيخ وعد في عم بينوق علي.